السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جانال كمركلة سود وده أدي هذا ومحسنتهين مانتا ومركي اللباد أين هودا كوكولانو مقال كان كهري أي جرو أن كوريستي هذا حقوق المسلمين تودو ده أمريكان كير نينك مدحدا كاه قبل مينيسوتا هولغلادا ciidamada ICE ay ka wadaan gobolka Minnesota toddobaadkii saddexaad aan uga wareysanayay iyo dadka sharciga leh oo ICE ay qabteen in ay diiwaan gelinayaan isla markaana ay rabaan in ay dawladda dacwad ka gudbiyaan maadaama dad muwaadiniin ah la dhibaateeyay oo Mareykan marka wareysigaasi soo daawo marka muuqaalkan aad dhamaysato kale muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago haddii alla idmo madaxweyne Trump ayaa xalay khudbad u jeediyay shacabka Mareykanka khudbad kooban oo ku dhawaad 22 daqiiqo ahayd madaxweynuhu waxa uu kaga hadlay qodobo dhowr ah mar kale Soomaalida ayuu ku weeraray oo sheegay in musuqmaasuq baahsan ay ka wadaan gobolka Minnesota madaxweynuhu wax qabadkiisii muddadii 12 bilood ahayd oo xilka hayay ayuu ka hadlay aad ayuu isku amaanay waxyaabo fara badan oo been abuurana waa ay ku dhex jireen madaxweynuhu uu sheeganayay haddaba arrimahaasi khudbadii madaxweynaha ayaa raba inaan idin la wadaago xisbiga dimuqraadiga oo sawiradii Jeffrey Epstein files ku jiray isbuucba xoogaa soo qarxinaya ama soo bandhigaya 5 sawir ayay soo bandhigeen sawiradaasina maxay yihiin waan idin la wadaagaya Trump waxaan ogeyn sawirada madaxweynayaashii Mareykanka soo maray in uu darbiga aqalka cad ku soo dajiyay uu ka marka laga reebo Biden uu qalin magaciisa uu ku soo qoray uu yiri ninkan isagu wadanka ma maamulayna qalinkaasi ayaa maamulayay hadda marka qoraalo ayuu ku soo hoos dajiyay sawiradii madaxweynayaasha soo maray Mareykanka waxa uu marka si aad ah u caynaya madaxweynayaashii ugu dambeeyay dimuqraadiga ah sida Bill Clinton Obama iyo Biden iyadana waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada maadaama sanadku uu sii dhamaanayo madaxweyne kasta sanadku marka uu dhamaanayo shacabka uu la hadlaa Trump xalay khudbad si weyn wadanka looga daawanayay oo kooban oo ku dhawaad 23 daqiiqo ilaa 22 daqiiqo u dhaxaysay ayuu shacabka Mareykanka u jeediyay madaxweynuhu waxa uu kaga hadlayay wax qabadkiisii muddadii 12 bilood ahayd oo xilka hayay maadaama xilka uu la wareegay 20 January ee sanadkan 2025 madaxweyne Trump sidaan ognahay in uu is amaano ayuu jecel yahay inta badanna hadalkiisa waxa uu ku celcelinayay madaxweynihii ka horeeyay ee Biden ayaa dhowr jeer uu hadalkiisa ama magaciisa soo hadal qaaday waxa uu ku bilaabay hadalkiisa waxaan dhaxlay wadan burbursan waxaanan doonayaa inaan fiksi gareeyo amaba aan isku toosiyo ayuu hadalkiisaba ku bilaabay marka sida muuqato waxa uu leeyahay maamulkii hore meel eber ah ayuu iiga tago meel eber ah ayaan ka bilaabay. Good evening, America. 11 months ago, I inherited a mess and I'm fixing it. Marka Trump waxa hadda muuqanaysa in cunsurinimadiisa banaanka uu dhiganayo marka arrimaha la xiriira ka shaqaynta Mareykanka uusan doonin xitaa dadka soo galootiga in wadanka Mareykanka ay ka shaqeeyaan Trump waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in lacag la siinayo dhammaanba ciidamada militariga ee Mareykanka qaybahooda kala duwan Trump waxaan ogeyn bishii hore inuu bartiisa True Social ku soo qoray maadaama lacagta taarifka dawladda Mareykanka lacaga fara badan ay ka soo galeen canshuuraha wadamada caalamka uu ku soo rogay in shacabka Mareykanka $2,000 uu siin doono arintaasi hadda waxay u dhacday ayaa la leeyahay sanadka soo socda laakiin khudbadiisa xalay waxa uu kaga dhawaaqay maadaama Mareykanka uu u dabaaldegayo xurnimadiisii 250 sano oo ka soo wareegatay markii Mareykanku xurnimada uu qaatay 1776 taariikhda sanadkaas iyadoo lagu saleynayo ayaa madaxweynuhu khudbadiisa waxa uu ku sheegay in 1.5 milyan ku dhawaad oo ciidamada militariga qaybahooda kala duwan loo soo diri doono toddobaadka soo socda lacag gaaraysa lacag hal mar ah oo qoys kasta loo diri doono 1776 laakiin waa militariga oo kaliya tii shacabka loo dirayay wali go'aan laga ma gaarin xilliga ay noqonaysana madaxweynuhu hore waxa uu sheegay sanadka cusub inay noqon doonto 2026 marka waxa loogu magac daray Warrior Dividend Checks ayaa loogu magac daray wasiirka dagaalka Pete Hegseth waa uu xaqiijiyay madaxweynuhu wuxuu yiri arrintan hore looma sii ogeyn laakiin maadaama lacaga fara badan canshuurtii taarifka aan ka helnay ciidamada Mareykanka waxaynu siinaynaa askari kasta iyo qoyskiisa hal mar lacag ah oo 1776 waana sanadkii Mareykanku xurnimada uu qaatay waa 1776 ahayd madaxweynaha marka
oo arrintaasi ka hadlayay waxa uu yiri. Tonight, I am also proud to announce that more than 1,450,000 military service members will receive a special we call Warrior Dividend before Christmas, a Warrior Dividend in honor of our nation's founding in 1776. We are sending every soldier $1,776. Think of that. And the checks are already on the way. We made a lot more money than anybody thought because of tariffs, and the bill helped us along. Nobody deserves it more than our military, and I say congratulations to everybody. madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale ka hadlay waxyaabaha la xiriira waxqabadkiisa. madaxweyne Trump wuxuu yiri aniga markastaba muhiimadeedu waxay tahay America First. danta Mareykanka in danta wax kasta aan ka hormariyo iyo waliba arrin iska fudud oo ah Make America Great Again halku dhigiisi oo laha doorashada oo maaga ahaa inaan Mareykanka mar kale mid wanaagsan aan ka dhigo. waxa uu sheegay sidoo kale 11 bilood kadib ayuu yiri markii aan xilka la wareegay xadkeennii hadda waa nabad oo ilaa ay xilkii aan la wareegay ma jirin qof wadanka sharci darro ku soo gashay. sicir bararkii waan joojinay ayuu yiri walow arrintaasi su'aal ay ka taagan tahay oo wali shacabku ay leeyihiin wali sicirka qutul daruuriga waxyaabaha la cuno oo dukaamada laga soo iibsado wali qaar ayaa cirkaasi ku jira. waxa uu yiri mushaarka dadku ay ku shaqeeyaan sare u kac ayaa ku yimid. arrintaasina sidoo kale wali calaamad su'aal ayaa ka taagan. prices are down ayuu yiri sidoo kalena waxyaabaha la iibsado ama lacagta lagu iibsanayo qiimihii hoos u dhacaya ku yimid waa sida isagu uu sheeganayo. arrintaasina wali su'aal ayaa ka taagan. wadankeenu waxa uu yiri marka ee America hadda waa mid aad u xoog badan isla markaana la qadariyo. waxa uu sheegay wadankeenu dib ayuu u soo laabtay waana ka awood badan yahay sidii uusan awood u yeelan sida uu madaxweynuhu uu khudbadiisa ku sheegay. waxaan rajaynaynaa ayuu yiri dhaqaalaha Mareykanka inuu cirkaasi galo isla markaana caalamku xitaa ay la yaabi doonaan oo aysan weligood arkin dhaqaale noocan la mid ah. waxa uu sidoo kale xaqiijiyay dhowaan waxa Mareykanku uu martigelin doonaa koobka adduunka oo sanadka soo socdo bartamihiisa dhici doono iyo sidoo kale Olombikada oo iyaguna la qaban doono. arrintaasina waxa ay dhacayaan yiri inta aan anigu xukunka hayo. waxa uu sidoo kale intaasi ku daray arrinta ugu muhiimsan waxay tahay waxaan u dabaaldegi doonaa sanad guuradii 250aad ee ka soo wareegatay markii Mareykanku uu xornimada qaaday. waxaana uu sidoo kale sheegay soo laabashada Mareykanka ma jirto wax uga muhiimsan in loo dabaaldego in sanad guuradaasi 250 guurada ka soo wareegatay. marka waxaana uu sheegay arrintaasi inay bilaabatay sanad ka hor markii aan xilka la wareegay. wuxuu yiri sanadka soo socda caalamku marka ay Mareykanka soo eegayaan waxaan doonayaa inay arkaan wadan daacad u ah muwaadiniintiisa isla markaana kalsooni siinaya shaqaalihiisa kuna kalsoon aqoonsigiisa isla markaana og meesha uu u socdo. marka wuxuu yiri caalamka oo idil hadda waa nala ka qadariyaa mar kale si aan waligeen aan naloo ka qadarin hadda ka hor. Trump oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri We're putting America first, and we are making America great again. Very simple. We are making America great again. Tonight, after 11 months, our border is secure. Inflation is stopped. Wages are up. Prices are down. Our nation is strong. America is respected, and our country is back, stronger than ever before. We're poised for an economic boom, the likes of which the world has never seen. Soon we will host the World Cup and the Olympics, both of which I got. But most importantly, we will celebrate the 250th anniversary of the Declaration of Independence. There could be no more fitting tribute to this epic milestone than to complete the comeback of America that began just 1 year ago. When the world looks at us next year, let them see a nation that is loyal to its citizens, faithful to its workers, confident to its identity, certain to its destiny, and the envy of the entire globe. We are respected again like we have never been respected. madaxweyne Trump sidoo kale xalay waxa uu khudbadiisa mar kale ku cadeeyay sida uu u doonayo Mareykanka inuu u shaqeeyaan dadka Mareykanka ee wadankan ku dhashay oo kaliya oo dadka ajnabiga ah ama soo galootiga uusan doonayn in wadankan ay ka shaqeeyaan. waxa uu yiri muddo 50 sano ka badan hadda waxaan arkaynaa reserve migration wax la yiraahdo oo ah
halkii Mareykanku dadka ay u soo haajiri jireen hadda inay isaga laabanayaan oo guryahoodii ama wadamadoodii ay dib ugu laabanayaan. Arrintaasina waxa uu yiri waxa ay fududeysay in guryo fara badan oo dadka Mareykanku ay degaan ay helaan oo faaruq ay noqdaan, shaqooyin fara badanna loo abuuro dadka Mareykanka ah. Marka waxa uu sheegay sanad ka hor doorashadeedii dhammaanba shaqooyinka la abuuray waxaa la siin jiray soo galootiga ajnabiga ah boqolkiiba boqol. waxa uu yiri inta aan xafiiska aanan la wareegin boqolkiiba boqol shaqooyinka la abuuro waxaa la siin jiray dadka aan Mareykanka aan u dhalan oo soo galootiga ajnabiga ah. Laakiin markii xafiiska aan la wareegay boqolkiiba boqol waxaan bilownay inaan shaqooyinka siino dadka Mareykanka ku dhashay ee muwaadiniinta Mareykanka ah boqolkiiba boqol. waxa uu sidoo kale sheegay dhamaadkii waxaa loo baahan yahay yiri dowladdu inay noqoto mid u adeegta muwaadiniinteeda wax soo saarka leh ee wadaniyiinta isla markaana howlkarka ah, amaba sidoo kale in ay dowladdu u adeegto kuwa sharciga jabinaya isla markaana khiyaanaya systemka uu Mareykanku ku shaqeeyo. waxana uu sheegay kuwaasi in ay doonayaan in awoodda ay ka helaan faa'iido. sidoo kale waxa uu yiri bal hadda fiiriya gobolka Minnesota halkaasi oo Soomaalidu ay la wareegeen dhaqaalihii gobolkaasi ma amaana mise wacay. wuxuu leeyahay dhaqaalihii gobolkaasi waxa gabi ahaanba la wareegay Soomaalida, waxana uu sheegay in ay xadeen balaayiin dollar isla markaana waxa uu sheegay inay ka xadeen gobolka iyo waliba Mareykankaba. arrintaasina waan soo gabagabeynayna. Trump hadda labadii bilood oo la soo dhaafay dowladda waxaa laga doonayaa in ay soo bandhigto shaqooyinka la abuuray bil kasto, ma aysan soo bandhigin labadii bilood ee la soo dhaafay. waxaa marka hadda la ogaa heerka shaqalaanta ee Mareykanka inuu sare u kacay 4.6%, waana ilaa iyo bishii September sanadkii 2021 4 sano heerka shaqalaanta Mareykanku xilligaasi ma uusan gaarin. isaguna waxa uu leeyahay hadda shaqooyin fara badan ayaan abuurno muwaadiniinta Mareykanka ayaan shaqooyin siinayna. Trump oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu mar kale yiri For the first time in 50 years, we are now seeing reverse migration as migrants go back home, leaving more housing and more jobs for Americans. In the year before my election, all net creation of jobs was going to foreign migrants. Since I took office, 100% of all net job creation has gone to American-born citizens. 100%. In the end, government either serves the productive, patriotic, hardworking American citizen, or it serves those who break the laws, cheat the system, and seek power and profit at the expense of our nation. Look at Minnesota, where Somalians have taken over the economics of the state and have stolen billions and billions of dollars from Minnesota and indeed from the United States of America. And we're going to put an end to it. dhinaca kale guddiga la xisaabtanka dowladda gaar ahaan xubnaha dimuqraadiyiinta ee ku jira aqalka wakiilada isbuuc kastaba sawiradii oo Epstein files ku jiray xoogaa ayay soo qarxinayaan oo ay soo bandhigayaan. maanta 5 sawir ayay soo bandhigeen. sawiradaasi waxaa ka mid ah iyadoo waliba maalinta berri ay ku egtahay 19 ee bisha jimcaha maalinta berri ah in xilligii loo qabtay wasaaradda cadaaladda oo 30 maalmood in ay Epstein files ay ku soo bandhigaan. marka waan arki doonaa haddii berri ay soo bandhigaan. sawiradan shanta oo xubnaha guddiga la xisaabtanka dowladda ee dimuqraadiyiinta ee maanta soo bandhigeen waxaa ka mid ah lug qof dumar ah oo qoraal uu ku qoran yahay buug la yiraahdo Lolita laga soo xigtay oo qoraal meeshaasi ku qoran oo ah nin jecel inuu la seexdo gabdhaha da'doodu ay tahay 12 sano jirka. waxaa sidoo kale la soo bandhigay fariin qoraaleed ay dad isku direen 2 qof, waxaana qoraalkaasi ku qoran soo dir qof dumar ah, qof dhahayo qof dumar ah noo soo dir. kolay jasiiradii Epstein miyaa loo diraya. marka waxa uu leeyahay waxaan hayaa qof saaxiib ah oo dumarka kuwa gabdhaha soo ilaaleeya oo soo qabta ah, isla markaana waan kuu soo dirayaa qofkaasi maanta ayaan kuu soo dirayaa ayaa ku qoran qoraalka. waxaa sidoo kale laakiin waxa ay weydiisanaysaa lacag $1 marka gabdha ayaa la kala gadaya $1 ayaa gabar lagu iibinaya. hadda ayaan kuu soo dirayaa ayaa qoraalka ku qoran. waxaa sidoo kale ku qoran waxa laga yaabaa qofkaasi inuu yahay qof wanaajin kara, qof magaciisa Jay lagu soo koobay, qofku yahay lama yaqaan, macnaha qof u qalma inuu la seexdo qofkaasi Jay la yiraahdo. waxaa sidoo kale ku qoran gabadhaasi magaceeda oo la tiray, da'deeda oo 17 jir ah, haydkeeda dhirirkeeda intuu yahay waa la qariyay, miisaankeeda waa la qariyay, in ay sidoo kale
Schengen visa ay wadato oo Mareykanka ay ku imaan karto waxay ka soo tagaysaa magaalo ku taalo Ruushka waa la qariyay wadankana inuu Russia waa la qariyay passport sidoo kale waxa la soo bandhigay qof dumar ah oo Ukraine uu leeyahay oo magaca iyo dhalashada iyo waxa dhan la qariyay iyo sidoo kale hal sawir oo ah Bill Gates ninka Microsoft iska leh isla markaana uu la sawiran yahay qof dumar ah oo wajigeeda la qariyay iyo waliba ninkii Jeffrey Epstein aha marka sawiradaasi ayay soo bandhigeen oo shanta ah marka maalin toddobaad kastaba xoogaa ayay soo qarxinayaan dhinaca kale madaxweyne Trump waxaan ognahay in madaxweynaashii ka horeeyay inta badan oo ay gaar ahaan kuwa dimuqraadiyiinta waxa aqalka cadarbigiisa horey ugu soo dhajiyay sawirada madaxweynaashii Mareykanka soo maray marka laga reebo Biden oo qalin booskiisii ku dhajiyay oo yiri ninkan wadanka ma uusan maamulayna qalinkan ayaa wax kasta saxiixayo maamulayay hadda qoraal ayuu ku soo daray sida afyeenka aqalka cad ay sheegtay qoraaladaasi qaarkood xitaa Trump ayaa gacantiisa ku qoray marka waxa uu caynaya madaxweynayaashii ka horeeyay dimuqraadiga sida Bill Clinton Obama iyo Biden oo mid kastaba halka madaxweynayaasha hore hal qoraal uu hoostooda ku dhajiyay isaga Trump laba qoraal ayaa ugu dhagan Bill Clinton iyo sidoo kalena Obama iyo Biden min laba qoraal ayuu ku hoos dhajiyay oo Biden leeyahay ninkaas Sleepy Joe ayuu iska ahaa waxyaabo fara badan madaxweynihii ugu xumaa ee Mareykanka soo maray ayuu hawalow Trump hadda maalmihii u dambeeyay kaamarooyinka ay soo qabanayeen marka golaha wasiirada la shirayo iyo marka shirar kale uu ku jiroba in isagu xitaa uu hurdayo oo hadda Sleepy Trump ayaaba loogu bedelay marka madaxweynaashii ka horeeyay ayuu mar kastaba doonaya inuu caayo ama aflagaadeeyo ama uu yiraahdo waxba ma aysan qaban marka arintan qori isku dhiib ay ahayd madaxweyne kasta meel ayuu soo gaarsiiyay marka madaxweynaashii ka horeeyay ayuu ku dhagan yahay hadda isaga ayaa xilka haya intii uu diiradda saari lahaa intii uu wax qaban lahaa maalin kastaba madaxweynaashii ka horeeyay sida Biden hadda khudbadiisa xalay xitaa dhowr jeer magaciisa uu ku sheegay ayuu daba taagan yahay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo